السلام عليكم waxaan ahay Cabdifataax Xuseen waxaan ahay macalinka idin soo gudbin doona casharada IT tutorialska ee YouTube-kana Somali Innovation maanta waxaan casharkeena ku qaadan doonaa sida ugu fudud ee Facebook-gaaga aad uga load gareyn karto adigoo isticmaalaya taleefankaaga tusaale ahaan haddii aad ku soo isticmaashay meel kale ama wad taleefanka saaxiibka habka ugu fudud ee aad uga saari lahayd si uu Facebook-ga ugu noqdo mid secure ama ammaan akhyaarta sharafta maalin wanaagsan meel walba adduunka joogtaan maanta waxaan casharkeena koowaad ku baran doonaa sida ugu fudud ee Facebook account-kaaga uga saari lahayd ama aad uga xiri lahayd aaladihii aad hore uga soo isticmaashay aaladahaasi waxay noqon karaan taleefan qof kale uu leeyahay oo Facebook-gaaga ka isticmaashay ama computer internet cafe oo hore uga gashay Facebook-gaaga isla markaasna aad ku soo ilowday adigoo ka bixin ciwaankaaga waxaana laga yaabaa inaad uga shakido in lagula isticmaalayo Facebook-gaaga haddaba shakiga si aad isaga tirto amaba aan lagula isticmaalin waxaan maanta ku eegaynaa hab yaroo fudud adigoo taleefankaaga isticmaalaya sidii aan uga xiri lahayn marka koowaad waxaad furaysaa Facebook-gaaga ama F-Lite-ka markaad furto waxaad aadaysaa saddexda xariijimood ee dhanka midig inooga muuqata markaad ku dhufato waxaad toos u tegaysaa settingiga waxa weeyaan qaybta laga maamulo Facebook-gaaga qaybta laga maamulo ayaa la dhahaa setting markaad gasho waad soconaysaa security and login meeshay ku qoran tahay ayaad aadaysaa markaad ku dhufato security and login waxaad ku dhufanaysaa see more hadda waad ujeedaan in taleefanadii aan hore uga soo galnay ay inoo muuqdaan taleefanka u horeeya waa Samsung Galaxy J3 6 kan waa ka hadda aan ku jirno oo active now inoo yahay kan ku soo xigo waa HP waa xawin laptop isna waa ka labaad hore uga soo galnay 28 daqiiqo ka hor baan ka soo isticmaalnay ka dhigan tahay ka saddexaad waxa weeyaan Itel S12 oo isaga waxaan ka soo galnay waqtiga markuu ahaa 1:19 daqiiqo yesterday shalay toole ka kale aan ka soo galnay waa Samsung Galaxy J3 isna waan ka soo galnay haddaba xagga waxaa inooga muuqda 4 meelood aan ka soo galnay Facebook-geena ciwaanka waxaa laga yaabaa inay naga jiraan taleefanadii ama laptopkii aan hore uga soo isticmaalnay marka si aan shakiga iskaga tirno misana aan uga xirno waxaan sameynaynaa meesha ay ku qoran tahay log out of all session baan ku dhufanaynaa markaad ku dhufato wuxuu ku soo saarayaa log out ba dhahaysaa waa tana ta buluuga ah weeyaan log out markaad dhahdo macnihii waad ka baxday ka dhigan tahay hadda wax Facebook oo taleefan kale inaga jira ma lahan kaliya waxa inoo muuqdo ka aan hadda ku jirno oo ah Samsung Galaxy oo active now ah aan hadda ka isticmaalayno maanta casharkeena intaasaan ku qaadanaynaa insha Allah casharaanta kuwa muhiima say kala muhiimsan yihiin ayaan usoo kala hormaraysiinaa insha Allah khayr ba idin rajeynaa